nin bakhayl ah oo aan waxbixinta ku fiicnayn ayaa waxa u yimi nin marti ah oo uu aad u qiimeyn jiray. wiilkii si yaraa buu u yeedhay oo uu sheegay inuu suuqa ka soo iibiyo hilibka ugu fiican hilbaha. wiilkii wuxuu saacado maqnaadaba wuxuu soo noqday isagoon hilib sidin. odaygii baa yidhi, war maxaad hilib u keeni weyde? wuxuu wiilkii ku jawaabay, aabba waxaan u tegay hiliblaha oo ku yidhi hilibka ugu fiican ee ku yaalla isii. wuxuu hiliblihii igu jawaabay, hilib waxaan ku siinayaa fiicnaantiisa aad moodayso burcad. waxaan is idhi buu yidhi wiilkii, war haddayba ay sidaas tahay miyaan burcadka laftiisa soo iibsado? nin dukaanla ah baan weydiiyey inuu burcad aad u macaani siiyo. markaasuu yidhi, waxaan ku siinayaa burcad aad macaankiisa moodayso malab. isla markiiba waxaa igu soo dhacday, miyaad bal malabka laftiisa iibsatid? war malab wanaagsan sii baan ku idhi. markaasuu haddana yidhi, malab waxaan ku siinayaa sida biyaha mooyasaxada u saafi ah. markuu halka xaal marayay waxaa igu dhalatay, war haddiiba ay sidaas tahay biyaha mooyasaxada laftoodu gurigiinna yaalleene maad iyagaba martida siisaan. sidaas baan guriga ugu soo noqday, ayuu aabbihii wiilkii ugu jawaabay. aabbihii oo ay awalba waxbixintu ku adkeyd ayaa wiilkiisii ku yidhi, allow alleh, walla caqliga iyo ragnimada anigaa kugu dhalay ee allaha ku xafido aabbo. laakiin wiilkaygow, wax kasta waxaa inooga daran intii aad suuqa wareegaysay sawkabihii cusba ayaan kuu soo iibiyey maad soo dhammayn, taasaaba dhib inoogu filane. wiilkii oo qoslaya ayaa aabbihii dhegta ugu sheegay, aniga ma bilcaqli baad moodda aabbe, waxaan gashanaa kabaha ninka martida inoo ahe. bal ka waran haddii aad ninkaa martida ahaan lahayd maxaad samayn lahayd? miyaad ku qabsan lahayd kabaha mise waad ka cari lahayd meesha intaanad gaajo ugu dhiman?